haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista iyo Haaruun Macruuf. awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban aawadeed ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horreeyay bishii Maarso 16 ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 oo qof. mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60 ilaa 70 qof. taas beddelkeeda waddamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. tusaale ahaan Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbar dhigo waddamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti. labada waddan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baadhaysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xiriira dowladda ama cisbitaalada yimaada, taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maareynta cudurka COVID-19. midaan raba inaan kuu sheego waxa weeye annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaas oo dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay calaamadihi inta ku arkeen ay u soo refergareeyaan isbitaal martiini weeye. marka taasi ma ka turjumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay. jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay. ilaa waxay tahay dhakhtar baa 90% wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii la keeno, qofkii la baaray. marka percentage oo positive noqonaya boqolada haddaan ka fiirino kor u noqonaya sababtoo waa wax ay dhakhaatiir soo xileen. laakiin waxay kelmaddu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto. markaasuu qiimo leeyahay. shalba hadda Mareykanka ay joogto intaasoo qofaa la baaray, intaasaa positive noqotay, intaasaa dhimatay waxa la sheegaya. annaga kaanu waa ka gedisan yahay. caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. tusaale ahaan 2 maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6,787 qof, balse 4,059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9,000 oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. waxaana la sheegay in ku dhowaad 5,500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha COVID-19. ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey. waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyiga ka soo wacayaan, meel kasta ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. laakiin haddana waxaan arrintaas loo saasay kuwa runta ah inaan ka filter gareyno kuwa aan runta ahayn, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filter gareyno kuwa xanuunku ku yar yahay, kuwa oo malaxaad ku yahay, aan xulnana kuwa oo aad ugu daran yahay maalin kasta percentage-kooda la soo sheego. marka aad iyo aad buu noo hogaamiyey arrintaasana fiicanta. kuwa maalaayacniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa? numberkan waa number publica, 449 waa la soo wacaya, qof kastoo soo waca waa in jawaab la siiyo waay. cisbitaalka Martiini ayaa ah haatan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. cisbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaala inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaludiin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maareynta COVID-19.
waxaanan weydiiyey xaaladda cisbitaalka Martini. Cisbitaalka Di Martino ayaa hadda xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19. Cisbitaalka imisa sariirood baa yaal? Cisbitaalka waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qaybta emergency-ga taala. waxaan sidoo kale Dr. Jalaaludiin aan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in cisbitaalka Martini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. waxaa la sheegay maalin 9 qof baa la soo tabiyey oo dhintay. wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayay in 9 qof ee dhintay dadka qaar waxay sheegeen oxygen la'aan inay dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay cisbitaalka. maxaa ka runa maxaa ka jira arrintaas? horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago cisbitaalka wuxuu u adeegaa bukaano kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondary-ga iyo tertiary-ga ee xirmeen. isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama koomada stroke ah ama si kale ama ah oxygenkooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 ka liito. sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aad u badato. dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa, xaqiiqo waaye, balse waxaan jeclahay inaan dadka u sheego saameynta korontada iyo oxygenka ma aysan ahayn. waxay ahayd dad end stage markii hore marayay, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenkaa isku soo aaday ay ahayd. 9 qofna waxaa xusid mudan 1 qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. gabar waxay ahayd da-adii u dacyareed, 2 qof da-doodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd dad 60 sano ka weyn. gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey. markii ay xaalkeeda iyadoo aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkaan ku geeriyootay. marka xaaladda habeenkaas sidaa ayay u dhacday. hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tagtay cisbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19? marna cisbitaalka koronto ma ka tagtay? cilad korontada ah way jirtay. sababtuna waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqaynayay lagu soo kordhiyay agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiino ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb kamida oo cusub la dhisay. isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay. culeyskaas ayaa xamili waayay. marka 2-3 mar oo way dhacday cilad koronto ah, iyadana waa la xaliyey. shirkad baana siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro standby generatorsna waa la rakibay. waxaan jeclahay inaan dadka u sheego systemka oxygenka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. marka waxaa haddii korontadu tagto dadku oxygen la-aan kuma dhacayso. waxyaabaha aad social media isla marayay ka mid tahay. waa system ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa laakiin saameyn ayay leedahay. korontada tigideeda xanuun bay leedahay, wayna mar walbana quality of life iyo quality care-ka loo baahan yahay way saameynaysaa. isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna ayadana waa lagu xalinayay, maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhalaanka keliya. uma diyaarsanayn inuu la tacaalo xanuunada coroniga ah iyo dadka mar walba dependent ku ah oxygen iyo qalab. macnaha uma diyaarsanayn. sidaas baa waxay keentay in hal mar uu demandiga bato. dad fara badan oo aad u ildaran oo u baahan in mashiino ku xirnaadaan, qalab diagnostic ku xirnaado, oxygen lala daba taagnaado, uu isbitaalku uu qaabilo. culeyskaas marka wuxuu ahaa runtii culeys aad u weyn oo jiro. markii horena aad loogaga taxadaray, laakiin waqtiga uu inagu simi waayey in lisa soo gaaro. dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye. aniga aabahaya kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinayo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha. waa markii ugu horreyseen maqlo inuu aabbaha u dhintay xanuunkan. waa ka xumahay, waana ku taxsiidaynayaa. samir iyo imaan Allah naga siiyo. waa mahadsantahay.
dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cisbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka covid-19 waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii cisbitaalka martiini doctor cabdulcasiis maxamed cali doctor jalaaludiin yuusuf axmed ayaa ka waramaya nafhorka ay samaynayaan shaqaalaha caafimaadka. dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee rigliga ku ah waa 28 dhakhtar oo 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan oo dhakhaatiirta ka shaqeysa qaybta gargaarka degdega ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo beri shaqadana la bilaabayo 5 kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah iyo sidoo kale 5 consultant oo aan saacado u baahanayno maalinkii 2 saac ilaa 4 saacadood takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigayso 38 dhakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayagana isbitaalka joogo oo kala duwan oo 3 shifti kala gala shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo saameynta xanuunka dadka ugu weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kor taagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxansado iska ooyinaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab ee dalkan u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso ee technology ay u baahnaan lahaayeen aysan haysanin ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo oo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhex taagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamo yaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysanayo cleanaries ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah oo bahalka BBE-ga xiran oo uu cimiladu kulushahay ku wada dhididayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay u sii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontada kala ciladeed markay imaato dhakhtarkii inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii hadan inuu la falgalo ay tahay maadaama aad noogu yaryihiin supporting staffka runtii marka duruuf aad qaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiini. imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso? tirada oo rasmi ah ma hayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibada ee colleagueska ah ayaa 13 qof waaye isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay covid-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan sidoo kale isbitaal gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka uu ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo umulisooyin marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ay u badan yihiin uu ku dhacay daatada rasmiga ah qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan. Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dawlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma iyo weliba dawladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. dawladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay inuu cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof halka 61 qofna ay bogsadeen. waa xilliga la duubay barnaamijkan. kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xoonsan yihiin marka la barbar dhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. sidoo kale waxay dawladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhaxeeya 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo. hase yeeshee ilaa haatan dawladda uma suurtagelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi la isugu imanayo. sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha.
waxaa kale oo la dagaalanka cudurka covid-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.